diin ma ku dhaqmaynaa anigu I will say no diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo diintan aan ixtiraamno niman naga aqli badan Mareykan ayaa kala sooceen diinta iyo state naga aqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waaya aragsan yihiin xireen baashan hala kala sooco ani marka waxaan qabaa marka in la kala sooco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعلنا هادين مهتدين إله نقدك كوها نوصن دادكنا هنونيا دمان دادك الصومالية دي برنامج كقفاعو كدك يسنة يا راديو بورني كنا داولا يا صومالي كمين تي في halkan waxaan kala hadlayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ognahay xaaladda Soomaali ku sugan tahay inaynu nahay dad fiktama ad arkaysaan inaan nahay dad muslimiina dad madow meeshaan ku noolnahayna ay tahay istiraatiijiyad meel cajiib oo ilaahay ina siiyey una baahan inaynu ka shaqayno midnimada inaynu diinteena ku adkaano maantana cadow fara badan aynu leenahay haddaba dadka barnaamijka dhegeysanaya maanta barnaamijkeena waxaan kusoo qaadanaynaa dimuqraadiyadda waxa in badan ka hadlaya dimuqraadiyadda aqoon-yahano kala duwan oo Soomaaliyeed oo qaad arki doontaan hadba sida ay uga hadlayaan dimuqraadiyadda inta si aanan dimuqraadiyadda dagalin waxa aan halkan fariin ka gaarsiinaya la ifaray laba nin oo mid uu yahay xildhibaanka Cabdullaahi Xaashi Abiib oo marna gaar ula hadlay imikana publicly mar labaad inaan uga hadlo isaga iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar anan gaarsiiyo naseexadan oo ay tahay haddii labadiinaba laba aqoon-yahan baati waxaad ka soo jeedaan gobolkii Awdal dadkii maanta gobolka Awdal wuxuu u baahan yahay midnimo iyo inaad uga faa'iidaysaan jaaniska maanta aad joogtaan xildhibaan ahaan iyo sanad ahaan laakiin haddii madaxdii dowladdii federaalka Soomaaliya xildhibaanadii aad ka midka ahaydeen intiiba aad criticize garaynaysaan oo aad ceebeynaysaan oo qoraaladiina ay ku jirto in xitaa kuwii wax bixinayay hay-adihii ay tahay inaad ku dacwoonaysaan waxa ay codsanayaan dadkii Awdal labadiinuba inaydin xasishaan oo aydan positionka u banaysaan dadka kale ee beesha si loogu faa'iideeyo maanta halganka lagu jiro qayb ay ka noqoto waxaa laydin farayaa waa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo xildhibaan Cabdullaahi Xaashi Abiib in haddii aad dadkii la fadhiisanaysaan xildhibaanadii isla markaana wax la qabanaysaan sida xildhibaanada inaydin xildhibaanadii wax la qabataan tahay haddii sida hadda aad ku sugan tihiin ay tahay annaga uun halana dhegaysto annaguna aan hadalno dadka kale waxba ma yaqaano ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha laa yuxibu kullu mukhtaarun faquur ilaahay ma jeclaa waana qadiyad u baahan in arrintaad ummadda Soomaaliyeed nin kasta oo isagu isqiimeeyo ogaado dadka muslimiinta cirdigooda in la ilaaliyo wey sharafta madaxda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka dadka ku jira mar walba in la ilaaliyo qaladka ay ku jiraan hoos loo saxo waa waxa la rabo laakiin galaash intaad iskuul dhan oo dhigayso kalaaskayga kusoo qaadato Soomaalidu waa corruption madaxdeedu waa sidan labadaa madax anigaa joogay waa tuug this is not wax bila aadan daawan karo oo ah in badanna dadka waa nagu celceliya aqoonta waxaa la yidhaahdaa waa information caqliga bila aadanka ma kordhiso ilaahay wuxuu leeyahay wayajcal lakum furqaanan marka laga hadlayo aayadaha qur-aanka iyo diinta kordhiya caqliga bila aadanka waxaad ku garataan aqoontu inay tuun wax la qaato informationa professorka aad arkaysaan ee wax dhigaya ilaahayga abuuray ma rumaysto marka sidaa uu ogaada aqoontu inay sidaa tahay nebigu wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu dadka ugu khayr badan waa dadka diinta barta dadkana bara marka waxaynu arkaynaa aqoon-yahano Soomaaliyeed oo meelo kala duwan jooga oo iibinaya dimuqraadiyadda waa maxay dimuqraadiyaddu dimuqraadiyaddu waxa weeye waa fikir dad ay u arkaan in la'aanteedana nabad iyo dowlad iyo cadaalad la heli karin wey dowlad dimuqraadiyaddu waxa ay tahay xukunka shacabka ayaa iska leh dimuqraadiyaddu waxay leedahay aniga qofka gaalka iyo qofka muslimka ninka xun iyo ninka fiican waxba igama galin ilaahayna wuxuu leeyahay
alaysa dakarun kalunha labkii dhidigii ma dhiman yihiin ma siman yihiin ilaahay wuxuu leeyahay hal yastawi alladii yaclamuun waladiina laa yaclamuun kii wax garanayay kii aan wax garanayn ma siman yihiin dimuqraadiyaddu waxay leedahay fikirka waxa iyaga u daranun cod waxa dimuqraadiyadda arkaanteeda ugu horreeya inay tahay xisbiyo dadka kala qaybiya iyagoo is ammaano dadka kala caaya codun baana u daran marka inagu waxaan nahay dad muslimiina waxaan ummadda la wadaagayaa fikirka dimuqraadiyadda inagu socda ee aad ay u wadaan aqoon-yahanada kala duwan ee soomaaliyeed inaynu ka midownayno baarlamankan soomaaliya dadka jooga waa idinka arkaya cabdi ismaaciil samatal cajaladiisa uu kaga warramayo niman xitaa laga waayay hal qofoo shareecada baasgareeya inuu ammaano intaasoo wadaadna uu ku jiro xildhibaanada soomaaliya dadkana aan ognahay sidii lagu soo doortay iyo sida ay yihiin waxaan ummadda u sheegaya inay ogaadaan in saddexda waxyaalood qofka muslimku ilaaliya ay tahay inuu ilaaliyo qofka kale cirdigiisa inuuna ku xadgudbin inuu ilaaliyo qofka muslimka dhiigga qofka muslimka iyo maalkiisa inuu xaqdarro ku ilaaliyo in badan xildhibaanada aan sheegnay gobolka awdal ku jooga iyo kuwo kale waxay criticize gareeyaan dadka inay ka waantoobaan weeye joojiyaan waxaan ummadda la wadaagayaa fikirkan dimuqraadiyadduna innaga inama anfacayo waxayna anfacayo waxaynu nahay waa dad muslimiina inaynu ilaahay ka baqno kitaabka qur-aanka iyo sunnada isku waafaqno oo aynu shareeco ka dhigano dadka baarlamanka joogana ilaahooga usoo noqdaan aynu leenahay shareeco kaamila ana loo baahnayn gole fuliya waxa gaala ay wadato waxa loo baahaya gole fuliya waxa ilaahay kitaabka qur-aanka ku qoran oo aynu raacayno nebigu sal allahu caleyh wasalam wuxuu xadiis ku yidhi saxiixa dadku shan ma sameeyaan shan baa ku dhaca shantaa waxa ugu horeeya dadku ballan ma galaan dadka weliba baarlamanka ku jira daaranaya ballantaa ay galeen inay fuliyaan wey ballan dadku ma galaan ilaa iyo ballantaa kama baxaan nebigu wuxuu ku sallidaa ilaahay cadow ama iyagu isku sallidaa nebigu wuxuu yidhi dadku faaxishada iyo xumaanta iyo sinada iyo waxa xun ma daahirsadaan waxa bata muutal qaflaha ama cudurro noocyadiisa kale duwan ayaa riwaayad kale lahay nebigu wuxuu yidhi wamaa xakamuu dadku iskuma xukumaan bikayri maa ansala allah oo kitaabka qur-aanka iyo sunnada ilaa iyo fashaa fiihum alfaqri faqriga ayuunbaa ku bata soomaali maantao dhan adduunkaa loo baryaya waana dad muslimiinoo shareecada inay qaataan tahay ka shaqeeyaan midnimada ummadda soomaaliyeed nebigu wuxuu yidhi dadku qiyaamo lama yimaadaan nabaadka ayaa nabad guura maanta baayac waxa ay soo iibiyaan ee dhacay inay dadka ka dacayaan wey dadkana waxa ugu wanaagsan ay wax ka iibin marka dadku qiyaamo lama yimaadaan ilaa nabaadguur dhulka waxa ku dhaca qudradii soo baxaysay nabaadguur baa dhulka ku dhaca nebigu wuxuu yidhi dadku sakada ma bixin waayaan ilaa iyo wax laga xabisaa buu yidhi madarka haddaba dadka soomaaliyeed halkan barnaamijka bufaca waxaan kala hadlayaa ummadda soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogta maanta cadow baynu leenahay waxay soomaalidu hore u timi gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa madaxda soomaaliyeed xildhibaanada nin kasta oo barnaamijkan u gaadho ilaahay ka baq fadeexadda iyo ceebaynta jooji dalkan sidaad ugu gurman lahayd ood uga shaqayn lahayd midnimadiisa dowladdana loo taageeri lahaa ummaddana cadow baa ku waajahan cadowgaa looga hortegi lahaa inagoo midaysan in lagu dadaalo inagoo baarlama inagoo wasiira inagoo madaxa intaba aynu noqono dad walaalo ah oo muslimiina oo dhulkooga iyo deegaankooga u tashada halka barnaamijka aad ka dhegaysanaysaan waa radio bolame somali community gooni wadafataga xaamun suldaan cali cilmi suldaan